بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين محمد صالح أحمد waxaan hore ugu ballanay inaan idin soo gudbin doono barnaamijyo gaagaaban oo aan ugu talagalay wacyi aan u bixiyey oo aad introductionkiina maanta hesheen waxaan rabaa inaan ku bilaabo haddii ila yidhaahdo iga raalli ahaado wax qaldo anigu emotionally sometimes frankly baan u hadlaa open oo soomaalinimo oo saaxiibtinimo ah kan ugu soo horeeya caaway aan rabo inaan ugu hormariyo waxa weeye lockdown baa lagu jiraa oo hadda wakti ah laga yaaba inuu berito laga baxo laakiin waa waktigii loogu talagalay in wax laga yiraahdo lockdownkii hore ayaan waxaan ka hadlay waxaan u cabsaday carruurteennu khaasatan wiilasheennu inay keeni doonaan buundooyin yar tusaale ahaan ilmaha soomaalidu guud ahaan waa talent alxamdulilah laakiin wiilashu waa lazy badankoodu intaan garanayo targetkooda waa 8 ka soo qaata wuxuu ku leeyahay hadda January baa la joogaa anigu June baan imtixaan gelayaa markii April la gaaro hooyaday hadduu joog ku dar tuushin bay ii qaban doontaa 8 baan keeni doonaa laakiin hadda grade 4 baan joogaa dhib male taa marka maxaa dhacday isagoo saas madax ugu jiro homework la soo daahayo galaaska soo daahayo oo report ku jira waxaa la yiri stop schoolku waa istaagay macallinka marka muxuu sameeyey grade 4 buu siiyey la iskoolka qiimeynaya sooma marka waalidka soomaalida inta aan la hadli kara waxaan kula taliyey please carruurteena waxaad u sheegtaan yaanay sugin June iyo July waxaad ku tiraahdaan maalin kastoo iskuulkaa tagtaan June July bay kula mid tahay waa exam day bay kula mid tahay waxaa la yidhahdaa be the best as you can be maalinta aad joogtona qofka u fiican ha sugin tomorrow waxaa la yidhaahdaa wixii ku dhaafa lagama shalayo waxaa soo socdana lagama warwero maalintaa joogta be the best be good muslim fiican noqo muslim soomaali noqo arday fiican noqo waalid fiican noqo aabe fiican noqo bani aadam fiican noqo maalintaas haystaa because you sure maalintaa you there hadda marka iskooladii waa tii la furay waxaan markay kula taliyay iskoolka maalintaa tagtaan edeb yeesha oo dadaala waayo waxaa dhici karta bari iskoolka in la xiro hadda waa la xiro iskooladii guriga la fadhiya 2 point baan rabaa inaan ka hadlo oo muhiim ah point waxa waaye maalin kasta make sure carruurow weliba wiilalow waa inaad muxuu ahaye aad gashaan muxuu ahaye aad galaaska aad ka xadirtaan waayo maalin kastoo galaaska aad contributionkaaga ka dhiibato macallinku wuxuu ku fekerayaa qiimaynta wuxuu ku siin lahaa imtixaanada GCSE haddaad tahay haddaad college tahay haddaad wherever you are year 2 ahaw year 4 ahaw year 6 ahaw year 7 ahaw year 9 ahaw year 8 ahaw year 9 ahaw year 10 ahaw year 11 ahaw college 12 ahaw macallinku maalin kastaa soo gasho attendance on time internetka soo gasho login samayso isxaadiriso la socoto casharka macallinka halkaa contributionka ka qayb qaadato targetkaagii haddaad GCSE 8 ahaad waad gaaraysaa haddaad laakiin opposite adoo 8 ah ka soo daahdo galaaska shaqadana celin weyso waxaa laga yaabaa maalin kasta macallinku wuxuu ku fekerayaa hal level baa hoos u dhacaysa saa la socda waalid oo frintaas idin faraya way markaa ogtihiin informationka idinku carruurtiina waxay ogaanayaan inaad ogtihiin marka loopholes ma jiraayo gaab ay ku dhuuntaan sidoo kale ilmaha targetkiisu 4-5 yahay oo foundationka samaynaya oo hadda ka soo qaad grade 3 haysta weli macallinku hadduu maalin kasta ardaygaas la shaqeeyo grade 5 u siinayaa waayo ardaygaasi xaq buu u leeyahay inuu grade fiican helo wuu dadaalayaa waa ogtihiin
diinta ka ogtihiin khibrad baa ka ogtihiin isku mid maaha qof dadaalay qof aan dadaalin isku mid maaha qofkii 5 saac soo kacay iyo qofkii saaka 8 miiska fadhiyay isku mid maaha isku mid maaha ardayga homework celiyey iyo ardaygii ilaaway isku mid maaha arday laga rabay 90 iyo above homeworkii macallinku sixi lahaa iyo arday 27% haysa isku mid maaha ogtiin haddana waxaan leenahay cunugaygu target 8 buu ahaa fair maaha macallin xun weeye kaa socon mayso taasi waa tii waxbarashada waxaa kaloo iga tala ah computerku hadduu ka hadlaabo internetku hadduu kaa cuslaado marka ugu soo horeysa oo systemku kuu furmo message u dir macallimiintaada si u ogaadaan waxaad ku maqan tahay ha oran is okay macallinkii wuxuu yidhi is okay hadhihin yaa kaloo shaqadaad ku qabanaya who knows xaaladda ku haysta nobody knows taasi waa tii waxbarashada responsibilitygii baa la soo wareegnay innagaa mas-uuliyadda waalidkii carruurta baa qaaday haddii shalay macallinku ku hayay taasi waa tii waxbarashada aan raba inaan ku xoojiyo tan kale muhiimka waxay tahay oo gifted from allah ilaahayna siiyey carruurteenna waqti hore umaynaan heli jirin oo ogtiin 8 bay jarmaadayaan 3 bay soo noqonayaan 5tii quraan geli jireen 8 7 bay soo noqonayaan xoogaa inta homework laga shaqaynayo qubqac way seexan jireen xataa homework kama shaqayn jirin subaxdina waa jarmaadi jireen hadda gurigay noo joogaan inkastoo ay timetable leeyihiin haddana waqti bay helayaan galabtii dhan bay faraaqa inoo yihiin habeenkiiba faraaqa inoo yihiin halkaa maxaa ka faa'iidaysanaynaa carruurteennii aan is aqoon weynay carruurteenni ayna qulubta isaga xirnayn carruurteenni ayna isku luqadda ahayn carruurteenni aan kor iska ilaashanaynay carruurteenni aan labada faamilo si degan aan ahayn jainis baan hadda helnay soo ma ogidin hadhihin ilaahu waqtiga soo gaabi maxay taa loo gahdhihin jainis baa ilaah ku siiyey shaqa la aadi maayo gurigaa la joogaa ilmihii marka maxaan samaynaynaa wax ku soo dhowaanaynaa dad mom how you doing iska waran timetableka la socda quraacda u diyaariya wixii resource u diyaariya markuu casharada dhameeyo waalidow telefoonada dhameey waalidow timetableka bedela waalidow ilmahan adaa dhalaya la fariiso waxaa la ilmaha soomaalidu 9 erey buu ka yaqaanaa soomaali 9 kuba waa amar 9 kaba waalidkaa bixiya 9 kaba ilmahaasi wuu fahmaa wuu yeelaa jawaabna kama soo cesho 9kii maxaa ka mid ah tuko seexo qubayso weesayso hamoo ka shaqay iskuulka aad intaba adiga adaa ku dhaha yes mom buu leeyahay routine so waxaa u malaynaysaa bacdamaa uu ku maqlayo oo qabta shaqada u dirta inuu luqadda garanayo 17 markuu gaaro intaa ma dhaafin karo waxaa markaad la soo ogaaday luqad hooyo la'aanteed inay wax dhibaato badan u keentay qoritaanka carruurta soomaalida weliba wiilashu inay ka hooseeyaan waxaa keena luqadda hooyo 17 jir baa wuxuu ku leeyahay hooyaa kuu imanaya adeer xaggee ku soo kortay hooyo aabbaana joogu ku leeyahay oo adeer luqadda maxaa dhacay wuxuu ku leeyahay gurigayga 2 community weeye odaga iyo hooyo iyo deedaas wixii ka weyn soomaaliya fiirsadaan soomaaliya ku hadlaan anigu deeda ka yar wixii ila ingiriis baan ku hadalnaa are you Somali yes do you speak Somali no luqadda inagaa dhuminay marka waalidu qiil noqon mayso qolo kale inaad dambi ka saarto macallimiinta dhigi maayaan oo community-ga dhigi mayso oo community-giis ma raacsana oo Soomaaliya beerta gasha don't care adaa lagu weydiinaya carruurtaada luqadooda kala jarkaaga aduu ku yaal inaa saa ku gudbin lahayd Luqmaanul Xakiim wiilkiisu waa ogtiin inuu la hadlay muxuu kula hadlay luqadu kula hadlo u sheegayay wiilkiisuna wuu qaatay wixii loo sheegay aakhiriya adduun baa looga sheekeeyey inaga carruurteenna hal eer uma sheegi karno because luqaday ku hadlaan ma naqaano iyaguna luqadaan ku hadalno ma naqaano emotionally expression waxa la yidhahdo carruurteennu hadduu imtixaan ku dhaco haddii la bulin garayo haddii isagoo sidwana hoos loo celiyo haddii maanta uu xanuusto haddii maanta aanu lacag wadan haddii maanta uu wax rabo
haddii maanta uu wax feeling garaynayo kuu sheegi maayo laba arrimoodba kow waa mare wuxuu leeyahay islaantii hooyada aabi hadduu rabo meelaha ma joogo islaantii hooyada toddobada kale ku wareersanayd oo haddaba iska calacalaysay ha ugu darin intii hore buu leeyahay kow labo ma kuu sheegi karo luqadii kuu sheegi lahaa ma garanayo sometimes hataa proper English ma garanayaan muxuu marka samaynayaa telefoon buu isku mashquulinayaa saaxiibba inuu samaysto isku mashquulinayaa qolo kaleu raadinayaa halkaasay ka imaataa in qolo kale yidhaahdaan annagaa ku fahmaynaa annagaa noo imow halkaasay ka bilaabanaysaa furihii baa marka laga qaadanayaa maalintii ilmahaaga qalbigiisa iyo maskaxdiisa furayaashooda qolo kale qaadato ayaan waxaan oran doonaa dulba baan joognaa caasi buu igu noqday intaasaan soo koriyey turkigaan geeyey tuushin baan konton ka bixiyey qur-aanku ii xafiday haddana waxba iima taro anug baa waxaa laga sheegay markuu secondary soo gaaruu baxay markaasaa la yiri war soo dhaqso hooyiis wuxuu yiri hooyo waa too late buu yiri waagi hore ma dhiijin soo dhaqso number 1 maxay iga tahay maxaan ka faa'iideynaa la jirkaan please luqadda caruurteennii aan isku soo dhawaano aan isbaranno caruurtii waxay ku doodeen markii la wareystay maxaad guryaha ugu dhuumataan teenage-kii maxaa waalidka uga carartaan maxaad banaanka ugu soo daahdaan maxaad guriga eerluu ima weyseen waxay dhaheen gurigii waalidkaya waxanaaqsanya wuu daalan yahay kow labo waalidkaya wuxuu nala hadlaa oo keliya markuuna canaananayo waalidkaya markaan wuxuu sheegno nama dhegaysto mashquul waay qola kalaa waalid u noqon doona yaa u ah waalid adaa dhalay ilaah baa ka beeray aakhiraa lagu weydiinaya duriya islaam baa laga rabaa 7 qarni kale inay muslim siyaadaan baa laga rabaa inay halkaa marka maxaa ka cad su-aashii waalido inagu Soomaali baan nahay dhaqankan kuma soo korin qobiyo qacbaa waxa ku soo kornay war nacasow ni raga noqo naag noqo ayaa saa ku soo gaarnay dadku noqonnay halkan waa negative ilmaha markaa tirada wax ma taqaan so what waxaa la yidhahdaa haddaad ku tiraahdo ilmahaaga wax ma taqaano you don't know wax shay could be anything waxaa la yidhahdaa you need 17 times inaad tiraahdo waa taqaanaa 17 mar waa taqaanaa haddii kale meel bay ku qormaysaa isgon I don't know why qulubta halkan u jilicsan yihiin artamiin waxaa lagaa rabaa kan waxbarashada ku liita iyo kan ee istarka kul inaad tiraahdo yes waxaa la yidhahdaa qofka in la dhiso bodiga iyo in la dhiso qalbiga iyo in la dhiso maskaxda si u kala horeynayaan personality horta baraada wuxuu ka yimaadaa la yidhahdaa qalbiga iyo maskaxda labadaas oo la isku daray weeye marka waalido caruurteenu intay nala joogaan aan ku soo dhawaano aan waraysanno maxaa sadkooj fadhidaa macalinkee kuu fiican waxbarashada maxaa kuu adag waxaa yaa badan top set year 11 weydii maxaa ku fiican tahay maths science haye kuleed ka rabtaa weli ma go'aansan haye jaamacadda rabtaa ma garanayo yaa u sheegaya communitygay ahayd waalidkay ahayd innagay ahayd inaan caruurteena kala garanno markay yaryihiin aan idhaahno adigu injineer baa ku fiican tahay adigu dhakhtar baad ku fiican tahay adigu xaafid quraan baad ku fiican tahay adigu economista ku fiican tahay adigu dhaqaalayahan baad ku fiican tahay waxaa la ogaaday ilmaha 5 jirka haddaad ku tiraahdo madiina ka tukanaysaa ka tujinaysaa waa ka tujina insha allah wax la ogaado haddaad tiraahdo dhakhtarka UK qalliinka wadnaha ugu sarreeya noqon doontaa isagoo 5 jira he will be there laakiin adigu waxaa leedahay soo ku noqon doona tan kale mid baa been noqotay
وأنا آمني لغة الصومالي عنق كدا أو عربي كدا أو لغة كلا كدا you know why confused بكون قوي يو is إنجليز كأي ستار كيري مايو أو سويدش كأي ستار وحاله قاعد المه أنتو كيري هاي تبنيو تطبات اللغة برنكرا أنتو يري هي وقبن كرا لغة الصومالي ولغة دقن كاجي أديك أسي والد كي ما هذا لي كوحرا يا والد كيس hooyada iyo ayada iyo aabaha iyo dadkii ku dhalay ilmaha dhashay ka waran haddaan la hadli karin oo gabaray maxaad qabanaysa weliba waxaad inta luqadda hooyada idhahdaa taas waa mid lockdown baa ku jirnaa weli soo ma ka sheekaynaynaa ragga soomaalida walaalahay dumar badan baa la hadlay rag waxay dhaheen xusaan ragga aaway annaga information waa bixinaa ragga dhagaysan doonow please walaalayaalo 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 gabdho qurux badan caruur qurux badan xidid fiican baad hesheen gabdhaha soomaaliyeed waa ogtihiin yurub markii la yimi muslimiinta adduunka gabdhaha ugu fiican bay noqdeen ma raba inaa faahfaahiyo ogtihiin gabdhaha adduunka ugu quruxda badan gabdhaha adduunka ugu diinta fiican gabdhaha adduunka ugu naxariista badan gabdhaha adduunka ugu dadaalka badan gabdhaha jaamacadaha tagayoo le my child a star waa soomaali wey brothers you don't know them I know them 20 years baan ku dhex jiraa waxaan idinkula talin lahaa walaalayaalo gabdhaha dhaqaalista gacantaa laydinka soo saaray shalay ragga qaarkood uma qalmaan I can tell you keligoodaa socda where are you brother maybe inaad tiraahdo mar kalaan ka hadlay doonaa taas hadda ku dugaan mayo lockdown baan ku jirnaa biliis gabadhii daashay oo saakay jarmaada jirtay oo carruurta iskool ka soo kaxayn jirtay oo malcaamadda geyn jirtay oo tuushinka geyn jirtay biliis haddaad adigu joogto gabdhuhu ha nastaan let them sleep subaxdii early soo kac carruurta salaada u diyaari quraacda u diyaari barqadii hooya soo kacdo iyadoo nasatay iyadaa dhammaystiri doonte waxaa kaloo iga maaseeya dadkeenna aqoon-yahanada ah ee wax garanaya ee ilaahay opportunityga siiyey luqad hadday noqon lahayd aqoon hadday noqon lahayd tala kale hadday noqon lahayd waa inaan caawinaa dadka walaalaheenna oo u badan hooyooyinka oo u badan carruurta agoonnada ah oo u badan agoonta aabbahood nool yahay intaasaan rabaa qaybtan inaan idhaahdo qaybaha dambena waa wadi doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu